caasi aadan loo hadalhaya doorasho u muuqato hal dhinac oo ka dhici doonta gobolka Banaadir taasoo dadka shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ay ku soo dooran doonaan ciddii ku matali lahayd wakiilada golayaasha deegaanka ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale waxay ku soo dooran doonaan hogaamiyihii ugu horeeyay oo aan ku imaan magacaabis madaxweyne taasoo dadka shacabka ay si toos ah u dooran doonaan doorashada golayaasha deegaanka ee lagu wado inay ka dhacdo gudaha caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho iyo hogaamiyihii ugu horeeyay oo aan ku imaan magacaabis madaxweyne taasoo u yeelan doono maamulka gobolka Banaadir doorashada golayaasha deegaanka ku dhawaad 56 sano kadib ayay doorashadan ay dhici doonta waxaana ka qayb galaya shacabkii ugu badnaa ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho dadka isdiiwaan geliyay doorashadani oo ay guddiga doorashadu ay tiradooda ku sheegeen inay gaarayso 920,000 oo qof ayaa ah mid aad ugu yar tiradii la filayay inay isdiiwaan geliyeen dadka ku nool caasimadda Soomaaliya oo lagu qiyaaso 4 ilaa 5 milyan oo qof dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ah gaar ahaan kuwa taageerayaasha xooggan ku dhex leh magaalada Muqdisho uma arkaan hanaanka doorashadani iyo guddiga ka shaqeynaya mid la isla ogol yahay oo nidaam cadaalad ah ku dhisan waxaana marar kala duwan ay ku doodeen inay jiraan dad badan oo si qasab ah lagu diiwaangeliyay waxaana intaasi dheer in su'aal la geliyay tirada dhabta ah codkooda ka dhiban doonaan 56 xarumood oo loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasoo lagu soo dooran doono gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ay si toos ah u doortaan dadka shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya halka xisbi ama urur sida dhabta ugu jira inay doorashadani awood ku yeeshaan waa mid uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo loogu yeero cadaaladda iyo wadajirka waxaana tartanka doorashada ku weheliya ururo yaryar oo ku jiran liiska mucaaradka dowladda ee shacbiyadda ku leh caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho balse la tuhunsan yahay inay gacan saar hoose la leeyihiin xisbul xaakimka talada haya ee lagu magacaabo JSP kuwaas ujeedkooda ay tartanka doorashadan ugu jiraan inay ku guuleystaan sida ay dad badan u arkaan waxaa loo arkaa in xisbigan ama ururadan ku jira ay yihiin kuwa markaasi lagu qurxinayo hanaanka doorashooyinka ee lagu wado inay ka dhacdo gobolka Banaadir balse aysan awood ku yeelan doonin nidaamka xulista golayaasha deegaanka iyo sidoo kale hogaamiyaha markaasi la filayo inuu ku soo bixi karo doorashadan gudoomiye Muungamo uusan qarsan inuu doonayo inuu doorashadani dadweyne ka soo dhex baxo si kursigiisa u sii xajisto balse waxaa laga yaabaa in Muungamo ku soo baxaan musharaxiin kale oo kursiga kula loolama ama tartan adag uu kala kulmo waxaana ka mid ah gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Yuusuf Madaale oo la sheegay in xilligan uu doonayo inuu isu soo taago xilka qabashada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dadka deegaanka ama dadka ku nool caasimadda Soomaaliya ay soo dooran doonaan doorashada golayaasha deegaanka balse Yuusuf Madaale iyo sidoo kale Muungab ayaa ka wada tirsan xisbiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud balse lama cadeyn karo in Madaale uu yahay murashaxa dhabta ah ee u taagan doorashadan hase yeeshee dhaqdhaqaaqyo iyo shirar uu xubnaha ururka cadaaladda wadajirka iyo odayaasha beesha uu ka soo jeedo uu ka dhex waday mudane Madaale maalmihii aynu ka soo gudubnay ayaa loo arkay inuu yahay murashax u taagan mar saddexaad damac ugu jiro kursiga ugu sareeya gobolka Banaadir weli ma kala cadda labadan mas'uul ee Muungab iyo Madaale midka xisbul xaakimka u soo sharxan doonaan in xilkaas uu ku matalo tartanka doorashada bisha November taasoo ka dhigan in musharaxii markaa hanta kalsoonida xisbiga ay sare u kiciso rajadiisa ah tartanka doorashada balse looga baahnaan doono inuu sidoo kale u helo codad dadka aan taageersanayn xisbiga JSP haddaba su'aashu waxay tahay murashaxa Madaale iyo sidoo kale Muungab yaa ku soo bixi doono shacabka ku nool magaalada Muqdisho yay siin doonaan codkooda markaa inuu ku soo baxo doorashada golayaasha deegaanka ee caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho waa su'aasha ugu weyn ee xilligan ka taagan caasimadda Soomaaliya qofka ama hogaamiyaha ama mas'uulka ku soo bixi kara doorashada golayaasha deegaanka waa Muungab iyo sidoo kale Madaale haddaba daawade wixii comment ama fikirka ku saabsan qaybta commentiga TV-ga ayaad ku soo qori kartaa